Assalaamu calaykum walaal ku soo dhawow channelka waxaan rabaa muuqaal yar oo kooban inaan kugu tusiyo sida taleefanka loogu borgaraamiyo internetka horta borgaraamka ka hor waxaa jiro cilado ku yimaada taleefannada kaasoo internetka uu u shaqeyn waayo dadka inta badan marka waxaa ka mid ah ciladahaas qofka uusan dareemeynin tusaale ahaan qofka haddii simikaarka uusan lacag ugu jirin internetka u shaqeeyma sidoo kaleeto mararka qaar waxaa laga yaabaa haddii taleefanka laba simikaar uu kugu jiro midka lacagtu ay kugu jirto maahan haddii kan kale uu ku saaran yahay internetku kuu shaqeyn maayo iyo mararka qaar waxaa jirto internetka shirkadu xagga shirkadda ay ciladu ka jirto ama shirkadu ay ka shaqeynayso kaleeto taasna waa cilad gaar ah iyo waxaa jiri karto in adigu aad joogtid meel aan internetka ku shaqeynaynin ama uu ku culus yahay taasna waa cilada saddexaad marka cilada ugu weyn inta badan waa borgaraaminta borgaraamka waxaa weeye taleefankii oo kuu borgaraamsan adigoo isticmaalaya laga yaabo adigoo mar taleefanka iska farfareynaya inaad borgaraamkii iska tirto kadibna internetka kuu shaqeyn waayo marka aan ku tusiyo sida aad u borgaraamsan lahayd mid kale waxaa jirto taleefanka hadduu cusub yahay soo gadatay simikaarkii markaas aad gelisay ma borgaraamsana wuxuu u baahan yahay inaad borgaraamisid labadaas goorba sida aad u borgaraamsan lahayd ayaan ku tusinayaa fadlan ila soco marka ugu horeeya marka waxaad taabanaysaa markaad saa usoo dejiso shaashada taleefanka waxaad taabanaysaa meesha ugu koreysa ee settingka ah ama saddexda dhibcood meesha ku xigta markaad taabato sidaana kusoo baxayso kadib waxaa ku dhufanaysaa sadarka labaad ee connectionska ay ku qoran tahay markaad gasho kadib waxaad taabanaysaa mobile networks kadib waxaad kusii dhufanaysaa access point name ama labada sadar ee ugu hooseysa kan kore markaad ku dhufato sidaana kusoo baxayso tusaale ahaan hadda aniga waa ii borgaraamsan yahay haddii borgaraamkaas ka tiro waxaan leeyahay reset to default waan iska tiray haddii marka adiga uusan kuu borgaraamsaneyn sidaana kuusoo bixi doonto marka waxaad ku borgaraaminaysaa waxaad leedahay waxaad taabanaysaa meeshaas ay ku qoranta ad dhanka meesha ugu koreysa dhanka midig ee ku xigta saddexda dhibcood waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufato sidaana kusoo baxayso meesha kore ee name ku qoran tahay waxaa ku qoreysaa marka meeshan waxaad ku qoreyso waxa ay ku xiran tahay simikaarka aad isticmaaleysid haddii hormuud aad isticmaaleysid waxaa ku qoray meeshan far waaweyn waxaa ku qoreysaa hormuud sidoo kale cagsigeeda haddaad somtel isticmaaleysid waxaa ku qoreysaa somtel internet aad ku qoreysaa meeshaas hore sidoo kale haddaad somnet isticmaaleysid waxaad ku qoreysaa meesha kore far waaweyn oo somnet ah hadda marka simikaarkaan isticmaala anigu waa hormuud waxaan ku qorayaa meesha hormuud meeshaan labaadna waxaad ku qoreysaa isla hormuudii oo far yaryar ah hormuud sidoo kaleeto meeshaan labaad haddii simikaar kale ama somtel haddaa isticmaaleysidna far yaryar oo somtela ku qoreysaa haddii somnet aa isticmaaleysidna waxaa ku qoreysaa somnetel oo isku xiran aan space u dhexeynin ayaad ku qoreysaa okay marka kadib waxaad leedahay okay marka okay tirahdid kadib waxaad taabanaysaa dhanka midig meesha ugu sareysa saddexda dhibcood aad taabanaysaa kadib save markaad save tirahdid sidaana kuusoo baxayso weli maadan borgaraaminin waxaad sii taabanaysaa meeshaan hormuud ay ku qoran tahay dhankeeda bidix dhibicda aad taabanaysaa markaad taabato calaamadaas kuu fuuleysa kalarkaas markaas micnaheedu waxaa waaye waa uu kuu borgaraamsan yahay markaad borgaraamiso waad ka soo baxaysaa markaa hadda waxaan borgaraaminay waa sim 1 marka waxaa laga yaabaa in adiga internetka uu sim 2 kugu furan yahay oo aadan weli borgaraaminin marka sim 1kii aad borgaraamisay ayaad internetka ku furaysaa ama aad saaraysaa oo sidee loogu furaa ayadana markaad saanaad dhehaysaa kadib meesha ay ku qoran tahay mobile data waad ku dhufanay then sim 1 ku dhufo markaas internetka waa kuu shaqeynayaa haddii marka adigoo intaas sameeyay internetka uu kuu shaqeyn waayo ciladu xagga borgaraaminta ma waxay noqon kartaa ciladu simikaarka inaysan lacag kugu jirin ama ciladu xagga shirkadda ee ka jirto ama meel anteena meesha aad joogtid meel aan anteenada ku shaqeynaynin saddexdaas midkood bay noqonaysaa okay halkaas waxaa noogu eg cashirka borgaraaminta